إخواني، ماذا ننتظر؟ هل ننتظر الضمير العالمي؟ أين هو الضمير العالمي؟ wuxuu ahaa boqor ka duwanaa boqorradii kale ee soo maray dalalka carabta. waxa uu gilgilay suuqyada shidaalka si uu galbeedka u tuso awooddiisa. waxa uu aad u diidanaa gumaysigii Israa'iil ee ay ku haysteen dhulka Falastiin. waxa uu ahaa codkar aan la gaban afkaartiisa iyo dareenkiisa. waxa uu ahaa boqor ku suntanaa nacaybkiisa uu qabay gumaystaha Israa'iil. waxa uuna ahaa cadowgii koobaad ee jiritaanka Israa'iil ilaa markii dambe lagu shirqoolay qasrigiisa. بخطوات واثقة في وسط القصر وبين الحرس، وصل القاتل بلا عناء ليوجه 3 رصاصات قاتلة إلى الملك فيصل بن عبد العزيز. shirqool lagu tilmaamo ilaa maanta inuu ahaa shirqoolkii ugu yaabka iyo muranka badnaa. haddaba waa kuma boqor Faysal? se sidee loo shirqoolay? magacaygu waa Cabdiraxmaan Cumar, halkanina waa Waaberi Media. ku soo dhowaada daawadayaal muuqaalkeenna maanta. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. boqor Faysal bin Cabdilcasiis Aal Sacuud waxa uu ku dhashay magaalada Riyaad ee caasimadda boqortooyada Sacuudiga sanadkii 1906. waxa uu ahaa wiilka saddexaad ee boqor Cabdilcasiis, aasaasihii boqortooyada Sacuudiga. waxa abtiyaal u ahaa qoyska reer Aal Sheikh oo xulafo weyn la ahaa qoyska Aal Sacuud ee haystay talada boqortooyada Sacuudiga. hooyadii waxa ay dhimatay markuu jiray 6 bilood oo keliya, waxaana soo koriyey ayeeyadii. waxa uu ahana qaaday waqti ay weli jirto qiimaynta dhaqamada carabta, qabka iyo geesinimada, qofkana kartidiisa aad loo qiimeeyo. Faysal isagoo da'yar ayuu siyaasadda galay. waxa uu ka soo muuqan jiray golaha shirarka ee uu aabihiis hogaaminayay. waxa uu ku hana qaaday raacidda raadka hogaamineed ee aabihii. waxa uu noqday qofkii ugu horeeyey ee ka tirsan qoyska boqortooyada Sacuudiga oo booqda boqortooyada Ingiriiska. Ingiriisku waqtigaasi waxa uu ahaa boqortooyo gumaysata caalamka intiisa badan, awood ballaaranna lahayd. Ingiriiska ayaa martiqaad u fidiyey boqorkii Sacuudiga, balse boqor Cabdilcasiis oo markaas ay ku furnaayeen dagaallo sokeeye ayaa soo diray wafdi uu hogaaminayo Faysal oo da'diisu ahayd 14 sano jir. markii uu 16 sano jirsaday waxaa taliye looga dhigay 6,000 oo askari si uu hoggaanka boqortooyada Sacuudiga u hoos keeno gobollada Hayl iyo Casiir oo markaasi diidanaa xukunka boqortooyada reer Aal Sacuud. Faysal ayaa ku guulaystay dagaalka, waxa uuna si buuxda gacanta ugu dhigay labadii gobol ee loo xilsaaray. sanadkii 1926 ayaa loo magacaabay amiirka gobolka Xijaas. 5 sano kadibna Faysal oo 25 jir ah ayaa loo magacaabay wasiirka arrimaha dibadda ee boqortooyada Sacuudiga. waxa uu safarro badan ku bixiyey dalal badan oo caalamka ah si uu u dhiso oo uu dhidibada ugu taago xiriirka Sacuudiga kala dhaxeeya caalamka intiisa kale. waxa uu heshiisyo iskaashi iyo xiriir la galay midowgii Sofiyeet, Ingiriiska, Maraykanka iyo dalal kale oo waqtigaasi awood lahaa. waxa uu qayb ka ahaa heshiisyadii lagu daahfuray shidaalka Sacuudiga. 30 sano ayuuna ahaa wasiirka arrimaha dibadda, gacantiisana marnaba kama bixin maareynta arrimaha dibaddu. xitaa markii uu noqday boqorka dalkaasi Sacuudiga, isaga ayaa u xilsaarnaa xiriirka arrimaha dibadda ee Sacuudiga. sanadkii 1953 waxaa geeriyooday aabihii boqor Cabdilcasiis, waxaana xilka la wareegay walaalkiis Sacuud bin Cabdilcasiis. Faysalna waxa uu noqday dhaxal sugaha boqortooyada. waxaa sidoo kale loo magacaabay ra'iisul wasaaraha Sacuudiga. waxa uu dejiyey qorshayaal dhaqaale iyo siyaasadeed, balse markiiba waxay isku dhaceen walaalkiis boqor Sacuud, wuxuuna Faysal iska casilay xilkii madaxa xukuumadda. Faysal ayaa taageero badan ku dhex lahaa qoyska boqortooyada iyo golaha culimada oo ay hoggaan u ahaayeen qoyska reer Aal Sheikh oo dhanka kalena abtiyaal u ahaa. isaga oo ka faa'iideysanaya jaaniskaasi ayuu wuxuu cadaadis badan ku sameeyey walaalkiis Sacuud. ugu dambeynna golaha taliska dhexe ee qoyska ayaa ku qasbay boqor Sacuud inuu xilka ku wareejiyo walaalkiis boqor Faysal. ugu dambeynna sanadkii 1964 ayuu Faysal si rasmi ah u noqday boqorka Sacuudiga. waxa uuna noqday boqorkii ugu horeeyey ee la wareega talada Sacuudiga iyada oo uu boqorkii ka horeeyey weli nool yahay. tallaabooyinkii ugu horeeyey ee uu qaaday boqor Faysal markuu xilka la wareegay ayaa ahayd casriyeynta nidaamka waxbarasho ee Sacuudiga. waxa uu aasaasay telefishinkii ugu horeeyey ee boqortooyada. waxa uu tirtiray nidaamka adoonsiga oo weli Sacuudiga sharci ka ahaa waqtigaasi ka hor. markii dalalka carabta mar kale
lagu awood roonaaday dagaalkii labaad ee Carabta iyo Israa'iil u dhaxeeyay ee dhacay sanadkii 1973, Mareykanka ayaa ku dhawaaqay inuu taageero hub iyo dhaqaale siinayo Israa'iil. Arrintan ayaa ka careysiisay wadamadii Carabta, waxa ay qaadeen tallaabo la xiriirta joojinta soo saaridda shidaalka, waxaana dunida laga dareemayay qalalaase siyaasadeed. waxaa sare u kacay qiimaha shidaalka oo markaasi dalal yar oo Carbeed gacanta ugu jiray, waxaana lagu qasbay Israa'iil inay dagaalka joojiso. Boqor Faysal oo aad uga soo horjeeday nidaamka gumeysiga ku dhisan ee Israa'iil ayaa wadamada galbeedka si uu cadaadis u saaro waxa uu hakiyay wax soo saarkii shidaalka Sacuudiga. qiimaha shidaalka ayaa gaaray in halkii barmiil lagu kala iibsado $12, halka markii hore uu ka ahaa $3 oo keliya. waa sare u kac boqolkiiba 400 ah. waa qiime aad u sareeya marka loo fiiriyo awooddii waqtigaasi ay lacagtu lahayd, waxaana istaagay wax soo saarka wadamo badan oo ay ku jiraan Jabaan, Ingiriiska iyo Kanada. waxaa gabaabsi noqday dhaqdhaqaaqa warshadaha Mareykanka, waxaana caalamka oo dhan laga dareemay muhiimadda shidaalka Sacuudigu u lahaa warshadaha dalalka galbeedka. arrintan ayaa sumcad ballaaran u soo jiiday Boqor Faysal iyo guud ahaan Sacuudiga. dunida Islaamka ayaa aad u boorisay go'aankii geesinimada lahaa ee uu qaatay Boqor Faysal, waxayna noqotay arrin mar walba laga hadlo marka la falanqeynayo awoodda shidaalka iyo isbeddelka uu ku samayn karo dhaqaalaha caalamka. dadaallo badan oo ay reer galbeedku sameeyeen Boqor Faysal waxa uu shuruud kaga dhigay in Israa'iil ay ka baxdo dhulkii ay ka qabsatay Carabta, sidoo kalena wadamada reer galbeedku ay joojiyaan taageerada ay siinayaan isballaarinta Yahuudda ee deegaanada reer Falastiin. waxaa Sacuudiga ku soo qulqulay wufuud ka socota caalamka, kuwaasi oo ka codsaday Boqor Faysal in uu dib u fasaxo soo saaridda iyo suuqgeynta shidaalka Sacuudiga. Boqor Faysal oo ahaa shakhsi go'aan adag ayaa diiday inuu wax ka bedelo ilaa laga aqbalo shuruudihiisa, waxaana ilaa 1974 uu caalamku ku jiray dhacdadii loo bixiyey qalalaasihii shidaalka ee koobaad. waxaa sidoo kale caan noqotay qoraahdii Boqor Faysal ee ahayd waa naqaanaa sida loo cuno caanaha geela iyo timirta, nolosheennu shidaal kuma xirna. haddii aad diideen hadalkeenna, annaguna waannu diidnay shidaalkeenna. go'aankiisii adkaa ee uu cunaqabataynta ku saaray wadamadii markaasi awoodda isbedayey iyo mowqifkiisii aan qarsoonayn ee ku aadanaa gumaysigii Israa'iil ayaa ugu dambayn waxa ay galaafatay noloshiisa. waxaa la abaabulay shirqool meesha looga saarayo boqorkan diiday inuu madaxiisa hoos u geeyo amarada kaga imaanaya wadamada galbeedka. 25kii bishii saddexaad sanadkii 1975 Boqor Faysal oo qaabilaya wafdi ka socda Kuwait ayaa waxaa xafiiskiisa u soo galay wiil uu adeer u ahaa oo ka soo laabtay Mareykanka. boqorka ayaa soo dhoweeyey wiilka uu adeerka u ahaa, balse wiilkan oo damacsanaa dhagar ayaa iska dhigay qof boqorka madaxa ka dhunkanaya. markii uu boqorku madaxa u soo raariciyey ayuu khamiiskii uu gashanaa kala soo baxay biskoolad. waxa uuna Boqor Faysal 2 xabadood uga dhuftay qoorta iyo madaxa. isla meeshii ayuuna ku nafbaxay Boqor Faysal. maalmo yar kadibna amiirkan dilay boqorkii adeerkiisa ahaa ayaa meel fagaare ah lagu toogtay, waxaana halkaasi ku soo idlaatay noloshii Boqor Faysal. Allah ha u naxariistee. dowladda Sacuudiga ayaa mar walba diida in dilkii Boqor Faysal lagu tilmaamo shirqool ka yimid dhanka galbeedka, waxayna sheegeen inuu ahaa arrin ka dhalatay khilaaf qoyska dhexdiisa ahaa. amiirka dilka geystayna uu u argudayay walaalkii oo ka mid ahaa dad bannaanbax samaynayay oo askarta Boqor Faysal ay xabado ku fureen, balse warbaahinta caalamka ayaan marnaba ka gamban inay ku tilmaamaan dilkii Boqor Faysal inuu ahaa shirqool siyaasadeed. Faysal bin Cabdilcasiis waxa uu tusaale nool u noqday dalalka haysta kheyraadka dabiiciga ah in ay leeyihiin awood ay waxa ay rabaan ugu meerin karaan dalalka waaweyn. waxa uu sidoo kale ahaa qof aan marnaba go'aankiisa uga tegin kuwa ka awoodda badan. waxa uu ka tegay dalkiisii oo haysta awood uu caalamka kula gorgortami karo, balse kuwii beddelay ayaa ilaa maanta ah kabaqaad aan dareensanayn awoodda qarsoon ee ay hibada u heleen. waxaana sidoo kale ka baran karnaa farsamada mar walba dowladaha galbeedku ugu dadaalaan sidii ay isaga horleexin lahaayeen madaxda diidda amaradooda, sidoo kalena diidda in kheyraadkooda lala maamusho. Faysal looma adeegsan awood kale, balse waxaa hawsha shirqool ka fuliyey isla qof ka tirsan qoyska boqortooyada. intaasi ayaynu ku soo gabagabeynaynaa daawadayaal muuqaalkeenna maanta. haddii uu ku qanciyey muuqaalku, ha ilaawin inaad la wadaagtid asxaabtaada. sidoo kalena haddii aad nagu cusub tahay nagu soo biir oo ka mid noqo bahweynta nagu xiran. mahadsanidin. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.